ninkan aad u jeedo ma haysto lacag uu ku gato kabo balse runta ayaa waxay tahay waa qayb ka mid ah bilyaneerada adduunka wuxuu fiirinayaa dhammaan dhismooyinkan kadibna qof walba meesha maraa wuxuu sheegay dhismahan inuu isagaliya wiliba isaga dhol cadeena dadkan weelayaabaan xilli naga tag waadwaalantay kadib ayuu soo galaya shirkad wuxuuna ku leeyahay waxaan rabaa inaan la kulmo CEO-ga gabadhin weelayaabaysa kadib ayay ku leedahay naga noqola xariifka ayaa bilaabaya inuu fiiriyo waxyaabaha meesha qoran dhammaan wiliba isagoo fiirinaya dhammaan dadkii ay shuraakada isla galeen balse si lama filaan waxa uu imaanaya security-gii weyna wadaya ninkii wiliba iyagoo wax weydiin banaanka ay kusoo turayaan kadib ayuu ku dhahayaa kani waa aniga shirkadeeda mar kale ayuu isku dayay haddana inuu gudaha sii galo isla security ay qabanaya dib ayuuna soo celinaya xariifka ayaa xanaaqaya wuxuuna bilaabaya security inuu garaaco oo uu la dagaalamo kadibna wuxuu sameynaya security-gii ayuu dhaawacaya ninkan aad u jeedo waxaa lagu magacaabaa Dashan wuxuuna ka yimaaday buuraha awoodda ee Kundalun ninkani wuxuu leeyahay qayb ka mid ah awoodda Dragon hadda ninkani waxa ay u noqday ninka ugu awood badan dunida kadib ninkii qofna way celin weeday ilaa uu la kulmay CEO-ga meesha maamulka ayuu arkaya kadibna waa uu fahmi waayay qofkani qof haddana gabadhan oo lagu magacaabo Joy ayaa imaanaysa waxayna ahaayeen gabadha isku galaaska ay markay yaraayeen laakiin Joy iyo Wade way fahmi waayeen qofkani inuu Dashan isaga si farxad leh ku dhahay anigu waxaan ahay Dashan ayaa isagoo faraxsan ku dhahay anigu waxay wacay aabaha Wade ayaa xanaaqay wuxuu isku dayay inuu security-ga meesha balse Joy ayaa ka celinay kadibna ay ku leedahay aabiisa waa uu dhintay kansar ayuu dhintay 12 sano ka hor kadibna Dashan ayaa bilaabaya inuu sheego waalidkiisa inay ku dhinteen shil diyaarad 15 sano ka hor waliba ayagoo raacay diyaarad private ah oo ay u bixin dalxiis wuxuuna u sheegay diyaaradaasi inuu isaga saarnaa balse uusan waxba soo gaarin si dhaqsile ay ku leeyihiin adiga Dashan matid waad qiyaameysaa xariifkii faqiirka isla markiiba wuxuu isleeyay company Wade ayaa markii dambe ku dhahay adiga sidaad ugu cadeynaysaa inaad tahay Dashan ka dhabta xariifka ayaa ku jawaabay Dashan qayb ka mid ah lacagtan isaga ayaa iskal balse security ayaa u maadeen Dashan sidaas ay lagu wadaa Dashan ayaa ku dhahay saaxib aniga waa mi fahmaysid miya ma ku dhac Dashan uu aamusaya wuxuu isku dayay wax walba inuu dib u soo xasuusto balse waxna uu soo xasuusan weynaa security oo idil waxay ku leeyihiin adiga waxa tarta lacagtan oo kaliya inaad tasho balse waa in meeshan aad ka tagtaa 15 sano ka hor guriga ay ka tageen Dashan ayaa dib ugu soo laabanaya wiliba isagoo gudaha u sii galay balse wuxuu waayay furihii wuxuu ka boodaya daaqada guriga dib ayuu arkaya sawir fara badan oo ganacsiga saaxiibkiisa ah oo nuguleystay kadib ayuu isku dayay inuu raadiyo sawir ah isaga iyo saaxiibkiisa balse waa uu waayay kadib ayuu maqlaya ay qayqaylinaya Dashan ayaa isku dayay eegaasi dib inuu soo fiiriyo oo qofku uu soo ogaado balse eegiisi ayuu arkaya kadib ayuu ku leeyahay waa aniga isdaji ay fadhiiso eegi ayaa wuxuu bilaabaya Dashan hadalkiisa inuu maqlo kadibna uu fadhiisto Dashan ayaa isku dayaya wax waliba inuu soo xasuusto banaanka guriga ayuu soo baxaya kadibna uu soo xasuusanaya maalmihiisa tagay oo uu la qaadan jiray saaxiibadiisii Joy iyo saaxiibkiisii Wade balse hadduu soo xasuusto xitaa qof aaminaysa ma jirto sababtoo ah ayaga waxay aaminsan yihiin 15 sano ka hor inuu dhintay ninkaas isagoo murugaysan ayuu iska soo tagaya oo gudaha ayuu ku soo laabanaya kadib waxa imaanaysa saaxiibadiisii Joy Dashan ayaa isku dayaya saaxiibadiisa sidoo kale wax walba inuu fahansiyo balse ma jirayso cid fahmaysa